halkan waa hotelka Asood ee magaalada Hargeysa. waxaa hadda warbaahinta diyaar u ah oo la hadli doona gudoomiyaha xisbiga maxaafidka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. جمهورية الصومال بديوة كله أفكار الصومالية كلها الله الصومالية وأنت ما أنتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan si gaar ah u salaamayaa oo waxaan balyeynaya oo bogaadinaya dadka reer Somaliland oo ay maanta tahay guul weyn oo qaranka Somaliland gaaray inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee madaxtooyada iyo xisbiyadu u dhaceen si nabadgelyo leh oo ku dhamaadeen. waa ilaahay mahadi aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dadka reer Somaliland codkooda ay bixiyeen hannaanka dimuqraadiyadda ay tahay in lagu doorto hogaamiyayaasha hogaaminaya dalka iyo xisbiyada metelaya qaranka ee saddexda xisbi qaran oo socotay muddo hawsheedii iyo ololaheedii iyo shaqadeedii oo maanta ay soo gabagabowday natiijadii hordhaca ahayd oo ay ku dhawaaqeen komishiga doorashooyinku sheegeenna inay ku dhamaatay natiijo xor oo xalaal ah. annaguna aanu qirayno inay ahayd natiijo xor iyo xalaal ah. waxaan ku hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba jamhuuriyadda qaranka Somaliland meel kastuu joogo qof kastoo muwaadin ah oo ka qayb qaatay iyo mid kale u suurtoobinba waan ku hambalyeynayaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka doortay xisbiga wadani ee doortay madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ku-xigeenkiisa. waxaan mar labaad u hambalyeynayaa dadka dhammaan doortay xisbiga wadani ee inay xisbinimo u doortay daraf ilaa daraf ka doortay Somaliland taasoo ay muuqatay in dhammaan sanaaduuqdii codbixinta mid walba cod laga soo saarayay oo aanu jirin ama ay naadir tahay meel aanu cod ka helin ama ay aad u naadir tahay oo meelo kooban tahay. marka dhammaan dadka reer Somaliland waan ku hambalyeynayaa doorashadii doorteen xisbiga hogaamintiisa iyo gudoomiyihiisa anigu aan ahay madaxweynihiisa ay doorteen aan soo sheegay madaxweynaha ku-xigeenka ay doorteen waan ku hambalyeynayaa waan bogaadinayaa waanan uga mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan muwaadiniinta kala duwan ee sida fiican ee habsami u socodka iyagoo xisbiya kala ah u tartamayay. waxaan u mahad celinayaa saaxiibadayadii aan u tartamaynay ee sida hufan u tartamaynay. waxaan u mahad celinayaa mahadaan la soo koobi karin komishiga doorashooyinka qaranka oo doorashada tan ka garsoorayay ahaa farsamadii iyo shaqadii ay fulinayeen ee ay hogaaminayeen inay doorashadu u dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynihii hore waxa weeye waqtigan maanta madaxweynaha cusub la doortay madaxweynaha hore Somaliland oo isaguna suurta geliyay qabashada doorashada madaxweynena si waxa weeye sharciga ku sii ah ilaa 13 December intii uu shaqaynayeen runtii dee aanu ahayn xisbiya mucaarada iyo xukuumad joogta. waxaan soo qirayaa qabashada doorashadan iyo doorashadii labadii doorasho ku horeysayba inay ahaayeen laba doorasho oo mid walba isa saaran oo culayskeeda leh oo xasaasiyadeeda leh oo ay qabashadeeda ku ammaanayeen aan ku ammaanay waa shaqadoodii laakiin bini'aadamku markay shaqadooda qabtaan xilkooda gutaan waa loo mahad celiyaa waan uga mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay doorashada Somaliland oo si positive ama si wanaagsan uga qayb qaatay oo doonayay oo niyad sami ku doonayay in doorashadu dhacdo ciduu doonaha u codeeyo waan u mahad celinayaa waan hambalyeynayaa kuwa noo codeeyay wadani ahaan noo codeeyay xisbiya madaxtooyaba waan hambalyeynayaa kuwa garashadooda iyo aragtidooda xisbiyada kale ku doortayna waan hambalyeynayaa. aad baa u mahadsantiin dhammaantiin. Somaliland guul insha Allah taala wadani guul idinkuna guuleysta dhammaantiin. salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.